الرحمن الرحيم كلهم وعند ما باخيارته هودا نغلا خريداي halkan waa Star TV xarunta dhexe TV uu ku leeyahay magaalada Hargeysa daawadayaal waxaan soo gaarnaa mintii aan hawadeedii soo marin jirnay barnaamijkeena xiisaha iyo xulashada wargeysada barnaamijka ayaa waxaynu ku soo qaadanaa warbixinaha aadka xiisaha badan laay quraan wargeysada ka soo baxa dalka iyo waliba caalamka intiisa kale iyo sidoo kale warbixino caafimaad barnaamijka waxa idin la socodsiisa sidoo kale isku soo dubarida anigoo Nishaad Farxaan Caliya aan soo qabto daawadayaal xubinta wareysa barnaamijkeena habeenkii caawa maxaad ka taqaanaa faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay malabku warbixintani waxa bogiisa dhexe ku daabacay wargeyska Somaliland Today ee ka soo baxa magaalada Hargeysa malabka dabiiciga oo qarnigii 16aad aad dadka adduunku u fahmeen waxa uu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo cajiib ah maadaama ku jirto tamar aad u badan waxa uu leeyahay waxyaalo muhiim ah dad badan in caafimaad ahaan u isticmaalaan waxyaalahaasina waxa kamid ah waxa uu ka hortagaa kansalka iyo wadna xanuunka malabka dabiiciga ee shinnida laga helo waxa ku jira maadooyin aad u muhiim ah iyo waxyaalo fara badan oo jirka ka dhiga waxyaalaha lafaha adkeeyo kuwaasi oo hoos u dhiga khatarta xanuun kansalka iyo wadna xanuunka waxa uu yareeyaa boogaha uurka ku jira malabku waxa uu faa'iido u leeyahay inay bogsadaan xanuunada ama boogaha ku sameysma caloosha sida bakteeriyada la yiraahdo madhicirada kuna keenta in boogi ka dhalato malabku waxa uu ka hortagaa bakteeriyada ama fangalka warbixinu soo saaray in la yiraahdo Peter oo ah agaasimaha manhajka caafimaad baadhista malabka ee jaamacad ku taala dalka New Zealand ayaa tilmaamay in malabku uu ka hortago waxyaalaha dhaliya cudurrada ee jirka dibadda uga soo saara waxa ay cilmi baadhistu arintaasi ku dartay inay shinnidu bakteeriyada iyo wixii la mid ah ka hortagto malabku waxa uu fiican yahay ciyaaraha nimanka ciyaaraha kala duwan sida ciyaaraha Olombikada waxayna cuni jireen malabka si awoodooda jireed ay u noqoto mid dhisan waxa hadda daraasad cusub oo casri ah lagu shaaciyay awoodda kobcinta malab sida ay uga dhigto qofka dhaawacyada jirkana ay uga dhigto qaar marka ka dambaysa qofku uu ka soo kaabanayo malabku waxa uu daweeyaa qufaca sida lagu iftiimiyay daraasad la qaaday 110 caruur lagu tijaabiyay kuwaasi oo la siiyay malab kadib markii ay qufac iyo joojin waayeen raxanyo halka sidoo kalena iyo waliba cuncunka cunaa qofka dhibaatooyinkani la soo darisa marka uu cuno waxa uu noqdaa qof caafimaad qaba isla markaasina seexdo hurdo caafimaad waxa uu daawo ka yahay xanuuno jirka ku dhaca malabka oo ay isticmaalaan khuburo la oran jiray medical oo qaar Hindiya oo noolaa 400 sano ka hor waxa ay inta badan ku daweyn jireen oo ay ku dheelitiri jireen qaybo badan oo jirka kamid ah una adeegsan jireen sida aragga miisaanka jirka qofka oo luma ama inay ku daaweeyaan haweenka dhiciska dhala si ay uga hortagaan caruurta dhiciska kaadi mareenka xanuunka ku dhaca ayuu sidoo kale dawo ka yahay ama xiiqda shubanka iyo waliba yeelaalugada dabcan daawadayaal xubintaasi aadii aan inta kaga nimaadno markana waxaan idin hayaa waa askari Faransiis oo toogtay nin soo weeraray warbaahinta ayaa sheegtay in nin askari Faransiis oo gaar ah oo ilaalinayay meel ku taala Brazil uu rasaas ku furay nin uu ka shakisanaa inuu weerar damacsan yahay ninkani oo ku dhawaaqay Allahu Akbar ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayay inuu mindida ka taagan ninkani askariga laakiinse isagoo dhaawac baani ka soo gaaray kadib markii askarigu uu rasaas ku furay ninka weerarkani ayaa la sheegayaa inuu doonayay inuu galo dukaan ku yaala meesha uu ninkan ilaalinayay oo ay ka jirto hawlgal nabadgelyo ballaaran ayaa haatan socda wasaaradda
wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay xaaladani ku tilmaamtay mid ba'an dadka ku jira meeshana ayaa iyagana laga daadgureeyay wararka ku saabsan dhacdadani waa ay soo tarayaan laakiin afayeenka booliska Faransiiska ayaa isna sheegay in ninkani weerarka qaaday uu ku dhawaaqay Allahu Akbar oo ah erayo af Carabiya oo ka dhigan Allah weyn hase ahaatee ma uu sidan waxyaalaha qarxa wararka qaarkood ayaa sheegay inuu sitay laba shandadood halka kuwa kalena ay sheegayaan inuu dhabarka ku xambaarsanaa daawadayaal xubintaasi inta kaga nimaadno markana waxaan idin hayaa waa deegaan dadka ku nool maalintii ay indhalaayihiin habeenkiina ay wax arkayaan warbixintan aad ka yaabka badan leh waxa wax ka qoray wargeyska saxan saxo ee ka soo baxa magaalada Hargeysa tuulo ku taala dalka Yemen ayaa lagu arkay dhacdo cajiib ah iyadoo dadka ku nool waqooyigaasi waqtiga habeenkii oo quraani wax ay wax arkaan balse aanay maalintii waxba arag tuuladani oo hoos timaada dalka Yemen ayaa dadka ku dhaqan waxa ay indhahooda sheegeen inaanay si fiican ugu arki karin maalintii balse habeenkii marka ay gudcur noqoto ay caadi u arkayaan wax walba maalintii balse cadceedu sida ay u dhacdo ayay wax arkaan qaar ka mid ah dadka degan tuulada koonfurta galbeedka magaalada Sanca waxa badankooda haleelay saboolnimo aad u daran biyo la'aan koronto iyo dhibaatooyin aad u badan taasina waxa ay keentay inay waqtiyada iftiinku jiro aanay waxba arag aragooduna oo aad u liito waxayna aragtidoodu xooganaataa marka ay cadceedu godka gasho amaba libidho ilaa hadda lama sheegin dhacdada amaba sheekadani waxa ka dambeeya dadkan haddii aan daawadayaal xubintaasi inta kaga nimaadno markana waxaan idin hayaa waa ilmaha aad u daayar oo aan wali gaadhin 2 bilood isla markaasina waalidkii dhalay aad u fajac galiyay warbixintaasi la yaabka badan waxa wax ka qoray wargeyska Somaliland Today ee ka soo baxa magaalada Hargeysa waalidiinta badankoodu waxa ay isku waaniyaan in aanay welwelin haddii ilmahoodu hadli waayo 18 bilood ee ugu horeeya laakiin waxa ay dhacdo cusub qabsatay aabbo iyo hooyo la kala yiraahdo Tony iyo Polly oo u dhashay dalka Ireland kadib markii ilmahooda oo bil iyo dheeraad 7 usbuuc ku hadlay kuna yiri kelmado ay aad uga yaabeen hello ilmaha yar oo hadda ku jira 7-kii sagaalaad ayaa muuqaal ka duubtay hooyadani oo jirta 36 jir taas oo sheegtay in ilmaheedu la hadlayay waxaanay tiri waxa uu isku dayay in uu hadlo muddo laakiin waxa aan la yaabay sidii uu isagoo aad u yar noola hadlay maalintaasi markii uu yiri hello ayay tiri Tony oo ah gabadha dhashay ilmahan yar muuqaalkan ay duubtay waxa lagu arkay ilmahan yar oo isku dayaya in uu la hadlo hadii markii uu dhowr jeer isku dayay waxa aakhirkii ka soo baxday kelmadihii ugu horeeyay oo ah hooyo haddii aan daawadayaal warbixintaasi inta kaga nimaadno markana waxaan idin hayaa waa Mareykanka oo u digay waqooyiga Kuuriya xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Master James ayaa sheegay in haddii Kuuriyada waqooyi adeegsato hub nukliyeer ah lagaga ficil celin doono go'aano adag oo meel mara Kuuriyada waqooyi oo qarka u saaran inay samaysato gantaal riddo dheer haddii aan daawadayaal warbixintaasi inta ka nimaadno markana aan soo qabto xubinka waramaysa dhanka ciyaaraha ma jiro hadal lagu sifayn karo wax qabadka ciyaaryahanka Messi ayuu sheegay tababaraha kooxda Barcelona warbixintani waxa wax ka qoray wargeyska saxan saxo ee ka soo baxa magaalada Hargeysa tababaraha kooxda Barcelona ayaa ka saaray laacibka Lionel Messi ayaa dusha isagu weerarkii uu ku qaaday markii ay wada ciyaarayeen kooxda Athletic Madrid guulo waaweyn ka soo hooyay iyagoo ay ku kala badiyeen 2-1 ugu adkeyntii dhignayd Athletic Madrid ayaa kulankani ka tirsanaa lugta hore ee semi-finalka koobka boqorka Spain ayaa sheegay inuu san jirin hadal lagu tilmaami karo wax qabadka Messi waxa uu intaasi ku daray inuu yahay laacibka soo muuqda kulamada loo baahan yahay kulamadan oo kale oo dadku ay ku wada sugan yihiin mar walba Messi waa uu ka soo muuqda ayuu yiri ninkani kadib markii ciyaarta isagoo hadalkiisa si wata waxa uu yiri ma jiro hadal aad awoodo inaad ku tilmaamto Messi waxaan aragnaa fiicnaantiisa xitaa kulamada waaweyn ayuu si raaciyay tababaro haddii aan daawadayaal warbixintaasi inta kaga nimaadno markanina waxaan idin hayaa maxaa iman kara haddii kaadida la isku celiyo warbixintani waxa ka waramayay wargeyska saxan saxo ee ka soo baxa magaalada Hargeysa mararka kaadidu qofka qabato waxa uu si kidiisa ugu cararaa suuliga iyadoo mararka qaarkood dhibaato lagala kulmi karo isticmaalka suuliga
oo ay dhici karto inuu qof kale ku jiro muddo intee leeg ayuu qofku kaadida isku celin karaa waxa ay ku xiran tahay cabirka kaadi haysta qofka qadarka kaadida ku jirta biyo cabista iyo awoodda kaadi isku celinta uu qofku u leeyahay ragga ayaa badanaa xajin og marka loo eego amaba la barbar dhigo dumarka marka kaadi haystu buuxsanto waxa ay fariin u dirtaa maskaxda si ay ugu sheegto inay doonayso inay kaadida sii deyso haddii kaadi dheeriye lagu soo daro kaadi haysta haddana dareen inaad kaadi haysta ay dareemayso haddana waad isku celin kartaa ilaa ay ka gaarto xad aadan xakamayn karin kaadida oo ay ka farabaxdo kaadi haystu waxa ay wareega kaadi haysta waxa uu ku wareegsan muruq ay shaqadiisu tahay inuu cadaadiyo kaadida si ay u soo buuxsanto marka ay soo korodhana ay u sii daayaan kaadida muruqani taasi oo faa'iido u leh waayo haddii kale kaadidu waxa ay ku noqonaysaa keliyaha waxayna noqonaysaa hawlgab maxaa dhibaato iman kara haddii kaadida la isku celiyo haddii mar walba kaadi haystu ay noqoto mid buux dhaaf oo kaadida lagu xanibo waxa dhici karta inaad xajin karin kaadida marka qaarkood haddaba isku day inaanad kaadida isku xajin si aanad ula kulmin xaalad caafimaad darro dabcan daawadayaal wali waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeena xiisaha iyo xulashada wargeysida oo idinkaga imanaya xarunta dhexe TV-ga ku leeyahay magaalada Hargeysa aan soo qabto daawadayaal xubinta markan aan idin hayo Mareykanka oo sheegay deegaaminta cusub ee Israa'iil inaanay dan ugu jirin nabadda deegaaminta cusub ee Israa'iil waxa laga yaabaa inaysan gacan ka geysanin in xal nabadeed la faragalo Falastiin ayuu yiri aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka war qoraal ah oo ka soo baxay aqalka cad ayaa intaasi ku daray in maamulka madaxweyne Donald Trump uusan go'aan rasmi ah ka qaadin arintani deegaaminta Israa'iil bishii 12aad ee sanadkii hore Donald Trump ayaa dhaliilay qaramada midoobay oo Israa'iil ugu baaqay inay soo afmeeraan ficiladan Khamiistii booliska Israa'iil ayaa dadka ka kaxeeyay goobaha ay deganaayeen oo aysan sharci ku haysanin oo ka tirsanaa dhulka ay haysato Falastiin arintana ayaa daba socotay amar maxkamadeed oo ahaa in dadka halkaasi laga raro dhanka kale Israa'iil ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sheegay inuu deegaaminta cusub ka sameynayo daanta galbeedka markii uu horeysay muddo 20 sano ka badan dhammaan baa khiyaarta hawada nagala xidhiidhay qodobkaasi waxa uu guniyay gabagabo ahaa barnaamijkeena xiisaha iyo xulashada wargeysida oo idinkaga imanaya xarunta dhexe Star TV ku leeyahay magaalada Hargeysa barnaamijka ayaa waxay idila socodsiinaysay isla markaasina isku soo dubariday anigoo Nashaad Farxaan Caliya dhanka kamarada muuqaalkan ee aad ka quruxda badan ee goorahan waa daawanaysay iyo farsamada barnaamijku waa injineer Arsame Iglan dhamaanta iyo anagoo isku duuban waxaan idinkaga tageynaa isarag maqal dambe oo xiiso leh